warqadda ka soo baxday xasan sheekh saakay asagana waa dish asagaa istoogtay nidaamka yarka ahaa ee Soomaaliya adduunka aqoonsanaana god buu ku riday intii ugu dambeysay waa sii gabagabeynaya Puntlandna wuxuu u sameeyay sumcad wuxuuna u sameeyay fursad wuxuuna u sameeyay waddo ay hubkan kula wareegto ciidamada badda Puntland caalamka oo dhan baa la shaqeeya midowga Yurub baa la shaqeeya Mareykanka la shaqeeya waa la aqoonsan yahay waa ciidamadii burcadbadeedda ka sifeeyay baddaas 1600 kiiloomitir ilaa hadda ilaaliya ammaankeeda dagaalka argagixisada door weyn ka qaatay ilaa hadda ammaanka sugaya ciidamada noocaas marka inuu iska indhatiro yiraahdo hubbi qabsadeen macnaha waa nidaamka dalka ka jira iyo sharciyada yar oo la isla aqoonsan yahay inay meesha ka baxdo waxa ku xigta Puntland marka inay soo saarto tiraahdo fiila Soomaaliya rag jooga dowladnimo uma aqoonsanina waa ganacsato ka shaqaysato hubka oo la shaqaysato shabaab intaas jawaabta ka imaanaysa Puntland ay noqonaysaa Puntland waa nidaamka Soomaaliyada maanta jirta ugu mas'uulsan waliba ku jirta dagaal argagixiso dagaalka argagixisana uga baahan taageero caalamka iyo dowladnimada Soomaaliya ee xamarta Allah intaba marka haddii lagu taageeri waayo dagaalkaas in magaca Soomaaliyeed hub lagu soo iibshay ama lagu soo qaatay inay qayb ka hesho sidii rabtaba ku heshay waxay u tahay fursad weyn waxayna u sameynaysaa sharciyad marka qabashada Puntland ee hubkan dhan walba waa guul dhan al-shabaab baa hub ay gacanta ku dhigi lahaayeen laga hor istaagay dhan hub colaado lagu hurin lahaa oo Soomaalida isku layn lahayd baa lagu hor istaagay midda saddexaadna hub doorashada Soomaaliya buuq lagu gelin lahaa oo lagu boobi lahaa waa la hor istaagay marka waxay qabatay shaqo qaran